dowladda federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay waxay ka hadashay odayaashii soo xulay ergadii soo dooratay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaasi oo birihii la soo dhaafay u hoggaansamay amar ka soo baxay dagaalamayaasha al-shabaab uguna tagay goobaha ay maamulaan war-saxaafadeedka xalay soo baxay ayaa wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska xukuumadda Soomaaliya lagu yiri dowladda Soomaaliya waxay cadeynaysaa odayaasha ay soo bandhigeen kooxda al-shabaab intooda badan inaysan ahayn odayaal rasmi ah ayna yihiin kuwa ay ka been abuurteen una geliyeen koofiyado iyo camaamado isla markaasina qasab ay uga hadalsiiyeen war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale digniin loogu diray dadka u hoggaansama amarada ka soo baxa al-shabaab dowladdu waxay uga digaysaa qof kasta oo u hoggaansama hanjabaadaha iyo sidoo kale marin habaabinta kooxda al-shabaab waxayna xusuusinaysaa shacabka Soomaaliyeed inaan badqab lagu helaynin in unuglaashaha caqabadaha ay al-shabaab u geystaan ugu dambeyntii dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in ay ka qaadi doonto tallaabo sharciga waafaqsan cidii u hoggaansanta amarada ka soo baxa al-shabaab